nin baa jiray badda Mediterranean-ka la yiraahdo ka talin jiray oo gadhacsan la yiraahdo oo muslima oo ah hogaamiyihii usqulka bahriga ah ay leedahay dawladda Uthmaaniya qaraasinada badjiifka dhulkan badda dadka ku dhaca badna burcadbadeeda tira badnayd caalamku burcadbadeedu waaga waxay ahayd waxa ugu caansan ee la sameeyo oo dawladaha Yurub cidii doon yar samaysan kartaa intay doon samaysato ayuunba badaha la tagi jiro dadka la boobi jiray dabeetana si badda loo nabadgeliyo khayradin barbaruus baa loo soo diray ilaa iyo Algeria qabtay Libya qabsaday Tunisia qaybaha ugu badan buu qabtay Algeria qabtay Isbaanishkii buu meesha ka eriyay waxa dhacday markaa way iska hor imanayaan dawladihii markaa dunida ugu xoog badnaa مثلا يوروب markaa waxa u xoog badan آل هابسبرغ boqortooyinkii Habsburg waa maqasheen baan u maqlaynaya waa boqortooyo cariiqa xeel dheer boqortooyinkii ugu dheeraaya Yurub ka taliya kamida asalkooduna waa namsaawiyiin namsa wadankan Usteria la yiraahday deganaan jireen waxa jira nin kamid ah boqortooyada oo Sulaymaan markuu 1520 meesha qabsanayay bil kadib mise bil ka hor meelahaasi ayaa isna madax laga dhigay waa ninka loo yaqaano Charles ama Carlos ama Carl ama Charles Khan afafka reer Yurub qolaba si uu qortaa waa Charles the Fifth Charles the Fifth wuxuu dhaxlay dhowr boqortooyo kow nin Al Habsburg weeyaan boqortooyadii namsuuleeyay islaanu hooyo ay yiraahdaan way waalatay majnuunatu qashtaala la yiraahdana habartii muslimiinta ka soo saartay Andalus ayaa dhashay boqortooyadii hooyadiina wuu dhaxlay oo markaa Spain oo boqortooyinka ugu waaweyn ahaa buu boqor u noqday wuxuu kaloo dhaxlay awowgii xagga aabba buu ka dhaxlay boqortooyadii Germany-na wuu dhaxlay wuxuu kaloo farsamo ku soo helay inuu helo boqortooyadii la odhan jiray al-Imbaraatoriya al-Muqaddasa al-Imbaraatoriya al-Muqaddasa Yurub boobku nin quru u ogolaa inuu imbaraator magaca sheegto dabeetana waa ninka boobkuna taageerayo Talyaanigana caasimadda ka talinaya odayga Macmillan odayga Jarmalka haysan jiray awowgii ahaan jiray Francisca ninkii madaxweynaha ka ahaa France waa la odhan jiray bay ku loolameen meeshuu qabsaday cala kulli xaal waa nin markaa 4-5 wadan boqortooyooyinkood wada hoos yimaadaan Charles kii shanaad baa la yiraahdaa Francisca boqortooyada iyo boqortooyadaas loo lamayay kadibna waxa dhacay in dagaal la dhex mareen dagaaladaasi waxay keeneen marka horeba dawladda tan Al Habsburg iyo dawladda Uthmaaniya waa labada boqortooyo ee loolanka ku jiray laakiin markay tani timi waxa soo baxay dawladda Faransiiska iyo inay col noqdeen nimankii la odhan jiray Al Habsburgaasi oo uu hogaaminayay ninkaasi Carlos la yiraahdo Carlos kii shanaad dagaal baa dhex maray dabeetana waa la qabtay markii la qabtayna waa la xidhay dagaalkii baa lagu qabtay François-gii koowaad markii la qabtayna waxa lagu xidhay meesha loo yaqaano Madrid ayaa la keenay Madrid markii la keenay ayuu wuxuu u dirtay waa maxbuus boqorkii Francis wuxuu u diranayaa inuu badbaadiyo dawladda Uthmaaniya oo wuxuu leeyahay nin baa si xun ii galay waa la xidhay adigaana boqorkii dunida ka talin jiray xabsiga ayaa laga soo daayay hooyadii oo naa'ibadu ahayd oo Francisca markaa xukumaysa waraaq soo dirtay islaanta waraaqdeedii waa tan waxay leedahay muddan sugayay inankayga xidhan anigoo inuu rajaynaya
inuu bini aadamnimo eega shaaralkaan laakiin may dhicin rajadayadiina way gaabatay sidaa awgeed waxaan ka codsanaynaa bay leeyahay fa innii altamis min jalaalatikum wa cadamatikum bisifa khaasa bian tatafadaluu biidhaari fakhaamatikum bikhalaasi ibni wainqaadih min qabdati dulmi caduwina وذلك بعظمتكم وجلالتكم المؤيدة والمصدق عليها من العالم. وحلا بقرك فرنسيس دون بسودين كره هذا بقرك الدنيا وين هذا هي جلالة هذا وحنقاع صرنا بقرك يجيب محبوسين تسوديسه بقرك فرنسيس كحدنا بسنا ورقد درية وحلي إلى حضرة حاكم وسلطان البلاد والممالك من أنحاء العالم المعمورة waxaan waraaqda u qorayaa buu leeyahay boqorka iyo taliyaha ka taliya dunida inta la degan yahay ba ninka madaxda u ah as-sultan al-mu'azzam wal-khaqan al-mufakham alladhi huwa malad jami' al-madhlumin buu leeyahay boqorka ah dunida inta dulmani ninka ay xaqiisa u cararta buu leeyahay a'radu ala hadratikum ma fi al-qalb waxaan naftayda ku jiraan ku soo bandhigaya oo waa maxay فرديناند مركا فرديناند وشارل كالو ولالكي او مجر هنغري كتالينيا فرديناند وملك مجرة مركا ويررتين شارل كان انغو نغا ارغوستي بوليا انغو نويرر بقركا مركا ايدكو ويررتين بو كان انغا نغا ارغوستي دبتنا محبوس بانahay فضلغاغا اون iyo waxtarkaagu baan sugaa buulay قياس فرانس او كاثوليكا hogaamiso boqortooyinkii waaweyn ka mid ah oo boqorkeeda maxbuuska waa boqorka kale oo waraaq u diraya Istanbul oo safiir dhan la dirayo oo waraaqda loo dhiibayo oo hooyadiina waraaq soo qorayso oo safiirintu la lugeeyo loo geynayo Istanbul soo boqorada u sii daayo فرانسيسكي سفيركي كسعودي مركو ينمو wuxuu yiri الهجوم البري والبحري ضد كارل الخامس سينقذ الملك الأسير وإلا فإن كارل الخامس ستزداد قوته ويشتد صاعده بالمعاهدة التي سيعدها معه الملكان حليه الملكان هدي أنا بقرك ويرر قادم بولي بدء يبري بله حدات قاده بقرك يجي ولا سود دينيه هديك له واحد داعي سبي إليه بقرك يجا وحبسيستي inuu jabo oo mucaahado iskala galo Yurub oo dhameeyo ka raacdo ee dantu aday kugu jirta ay ka gaadhulay wuxuu ugu jawaabay Suleymaan al-Qanuni wuxuu ugu jawaabay kow waraaqdu waxay ku qorantay marka hore cinwaanka madaxtinimo uu sheeganayo ana sultaan as-salaatin kabiir al-muluk ana alladhi atawajj al-muluk dhillu Allah fi al-ard أنا سلطان البحر الأبيض والبحر الأسود والروملي والأناضول وقارمان والروم ودو القادر وديار بكر وكردستان وأذربيجان ودمشق وحلب ومصر ومكة والمدينة والقدس وجميع ديار العرب واليمن وحشيغان يا أنت وحكومة دونيده مركو الشيكتي كدب أيوح قري من السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان إلى فرانسيس ملك ولاية فرنسا ملك ولاية نك فرانسيس صدر حكومة وحلقة يا معي ملك ولاية فرنسا أبو لي هو صقري وأنا سوق على يبوي وركي فرنجباي إرجعت صادرت فرنجباي ليدا هذا رسالة دي قريت يتي أفكبا هيد ونوكا نيبولي وأنا نلاشى عدوي نصيدو كوغلي إيانا محاصر تهي وأنا مفهمين دبا هنتهي كالمضى يدينا كوغرغارو وحا صردن هرتيدو كشيغي بويري وأنا مفهمي وركاغي أديغا ميدبان كو شيغي يا بويري وحوين ما هبويرين بقرادة اللحداية هرت مروغدا إيان يتشبك إسكايلالي بولي ما والله يحدى وحلقة على علمها بوليو ننكع على عليه فلا تحزن ولا تهتم فإن آباء الكرام بمركالي
وأجداد العظام نور الله مراقدهم لم يكونوا خالين من الحرب لأجل فتح البلاد ونحن أيضا سالكون على طريقهم وفي كل وقت نفتح البلاد والقلاع الصعبة الحصينة وخيولنا ليلا ونهارا مسروجة وسيوفنا مسلولة فالحق سبحانه وتعالى ييسر الخير بإرادته ومشيئته وأما الأحوال والأخبار الأخرى فسيبلغكم بها رسولكم وكل إليه waxaan kuu sheegayaa aabbayaashaydii sharafta lahaa iyo awowyadaydii waaweynaa ilaahay xabaalahooda ha nuuriye dunida waa furanayeen anna waxaan kuu sheegayaa buu leeyahay sidii faraska iyagu inuu kooraysan yahay seeftayaduna u baxsan tahay ilaaha weyn baana khayrka fudaydiya buu yidhi wixii ware hoosana waxa kuu sheegi doona buu yidhi rasuulkaaga wixii ware hoosana ergeygaad soo diratay ayaa kuu sheegi doona buu leeyahy yacni waxay tilmaamaysaa salaatiinta yurub ayaa ahaa kuwa u geeya maxaa la yidhaahdaa kuwa u geeya jisyada kuwa u geeya markii maalan madaxnimada la saaraya isaga markii uu boqortooyada qabsanayay waxay yimi boqorradii dunida qaybo ka mid ah waayo dee sultaankii dunida ugu weynaabaa la caleema saaraya waxaa yimi ninkii madaxda u ahaa meesha la yidhaahdo ragusa waa magaalo ku taalla sicily isqaliya meeshan la yidhaahdo waxaa yimi kii raasheenka waxaa yimi kii bunduqiya salaatiin badan baa yimi waxay u yimaadeen litahni ah boqorkan weyne dee ninka dunida ka taliya ee madaxnimada loo inay tahniye u sameeyaan iyo inay mucaahadaad heshiisyo dalab heshiisyaday soo qorteen waa maxay ragusa qolada la yidhahdaa way timo waxay yidhaahdeen waxoogaa hubana waanu u baahanay dakhiira inaad naga iibiso cashuuraha qaarna naga dhaaf bay leeyihin markaanu dekedahaaga nimaadno iyaga wuxuu ku yidhi hubka laydinka iibin maayo laakiin waa laydin siinayaa cashuur dhaafka waa laydin siinaya soo imika maraykanka inta la tago kontragyana lalama soo saxeexdo waxoogaa hubana naga iibin lama yidhaahdo oo marna ma yidhaahda idinka iibin maayo marna waa idinka iibinayaa sidii oo kale weeyaan wuxuu leeyahay cashuuraha qaarna naga dhaaf hubna naga iibi wuxuu u ogolaaday qolada inuu cashuuraha qayb ka dhaafo laakiin hub laydinka iibin maayo waxaa yimi safiirkii raashiya isagu wuxuu leeyahay nimankan qiramka la yidhaahdaanu khaatiga taaganay qiramka waa tataarkan waa meesha nimanka uu qabsaday ninkani ayaanu khaatiga taaganay kuwaana nagala hadal mucaahadana nala gal heshiisna nala gal wuxuu yidhi wax heshiis aan idinla gelayaa ma jiro laakiin kuwa maalmadaaya waan odhanayaa kuwaas inay maalmo idin daayaan waa ogolaanayaa laakiin mucaahada ma jirta iska taga idinkuna waxaa yimi albunduqiya bunduqiyadu waa venisia magaaladan la yidhaahdo bunduqiya qoladii haysatay waxay dalbanayaan iyana mucaahadaadkii hore in loo cusboonaysiiyo marka hore way ammaaneen boqorka aad baanu ugu qanacsannay bay leeyiin boqortaydaad iyo waxaad waddo oo dhan waxaanu rabnaa heshiisyadoodii iyaga dan kalu lahaa waayo markaa wuxuu diyaarinayay duulimaad aad u ballaadhan oo yurub ku qaado aluhasbergeedii iyo majariyiintu uu duulimaad ku waday saa daraaddeed wuxuu rabay bunduqiyada tan inuu ka saaro xilfi wadaagga qolada inaanay gelin iyaga mucaahadu la galay mucaahadada waraaqdii inta la qaadaa waxaa laga akhriyey majlisu shuyuukh ay leedahay meeshaasi 1522 abril 8 soddon bandi ama soddon qodob bay mucaahadadu ka koobantay ka koowaad tijaarada in xorriyad laga dhigo la ogolaado nabaddana la sugo ka labaad safiir inaad noo ogolaato inaanu istanbul keensanno oo weliba 3 sannadoodba maraanu kaa beddelno safiirku safiir daa'ima maaha every 3 years in la beddelo waxa laaliya wixii kaa soo baxsada inaynu soo celinno
dadka badda dhibtu ku haleesho inaan wax dhiba loo geysanin wixii dhinta ama mutahamiina soo yaaca in la isu celiyo nimanka banaadiqadii ama dawladdiinaasi waddanka Istanbul gudaheeda inaydan waddanka Turkiga gudihiisa inaydan socon karin ilaa warqad dhaqdhaqaaq safiirku idin siiyo mooyaane waddanka gudihiisa warqadda dhaqdhaqaaqa ee safiirka ayuunba ka qaadan kartaan waxay codsadeen North Africa intaan ay muslimiintu xukunto in loo ogolaado inay la baac mushtarayn karaan waxay aqbaleen wixii doonay tijaare ay leeyihiin Istanbul inta la keenay in la baadho marka hore waxay sido la ogaado waxa ay sido waxay aqbaleen 5,000 ilaa 10,000 oo dahaba dawqiya dahabiya ah oo jizya inay sanad kasta ka bixiyaan labada jasiiradood ee Qubrus iyo Zantana dawladda Uthmaniya loo keeno mucaahadad soddon bandi ka kooban buu qoladan la aqbalay waayo bay yidheen boqorku wuxuu u baahnaa dagaalada uu qaadayo inaanay qoladani qayb ka noqonin oo ka soo qayb gelin waxaan leenahay markaa boqortooyadu ninkani xukumayay wuxuu ahaa boqorka aynu odhan karno dunida ninkii ugu boqortooyo ballaadhaaba wakhtigaasi ahaa oo boqortooyooyinkii wakhtigiisa la noolaa waxaa ka mid ah imbaratorka Karol al-Khamis la yidhaahdo oo Arshadoq waa boqortooyada ka talisan Namsa ahaa imbaratoriya al-Muqaddasana isagu dhaxlay iyo Spain imbaratoriyadeedii waxaa ka mid ahaa walaalkii waxaa ka mid ahaa boqortooyooyinkii Faransiiska François-gii koowaad iyo Henry-gii labaad waxaa ka mid ahaa boqortooyadii Ingiriiska Henry-gii sideedaad qaysarkii Ruumaan qaysarkii Russia عالم الإسلامي مركز لا يقبل قرطوين كير رجرة وشاه طهماسب كو إسماعيل السفوي وضيجي هراء السليم وشبيين انكسيويان هي همايون البابري وانيكي حكومة يمركا إنديا الدولة المغولية كصهري بابركو سوميدان مقالم كمساجد هذه قور لسكو هيو يدوميان وإنديا كويا الله إليه معبد هلو بدلو هنديدو يكو دوديسو وهمايون كان أبيه نكدسي بابوري قال الشيء وكا أبيه همايون البابوري وحكم إذا أكبر شاهي وابن همايون كاسمر قردنتايا وحاصب بقراء دوني دا كتشيري مركا الله بربر ديغو سليمان القانوني وحي هين دولة يرير لا إلاليو مؤرخي قرنقي لحية طبناد مسلم كاها الشيخ اللورنجري جلال زاد مصطفى الشلبي ماركو سليمان القانوني كور رمي وحوري إنه زبدة آل عثمان بيري دولة العثمانية زبدة دي معيد ونكم بوها بيري صدح شيبان وقعان بحي بيري العدالة أو دتك وعدالة سمايه هي حماية الشعب والسعي على مصالحهم شعبك إلى الانتيس هي مصالح دودة قد إنو دوره هي صفة الفاتح العالمي إنو أها نن فرش بدن واحد عن سليمان القانوني وحوها نن قبياية وقبيقة كفي عن وحوها نن لغة عربية هي لغة بيرشية هي لغة أتراكتا سيبا لهجة تتارية هي تركية سيبا أفرتا لغة بالنسي عنو يقانبوها بيد هذا وكويدا قبيدي ساعان كاي شيغان وحا كميدا قبي وليه مركي ترجمين وحا كميدا إن سجادة تكفي الصوفيين 2 ولكن العالم كله لا يكفي لملكين بيد هل سجادة لبا ودادو الصوفيا ويسكا فلانتا بيد لكن دوني دور دمي لبا بقركم في الله بوليه قبل يوترين يعني عالم السياسة هنقول يالا هي عالم الزهد انت داقي كرتبو تلمامي أحد يسيب الله قري قانون كي وقبض نايا ودنكو إلى الدولة العثمانية يدعي سيكون رقمية قانون كي سوحو ككو بنابالي لها فتاوي العلماء ولذلك قصص كعجيب كي كشاقان وحكم ده مركو ديمانيي أيولي صندوقها الليلة آصر شيخ الإسلام كي أها مفتي الدولة
ayaa wuxuu yidhi sanduuqa armay wax qiimo leh ku jiraan ha la furo ilaan in hadday mujawharaad iyo wax wanaagsan ku jiraan in xabaal la geliyo maahe sanduuqa aan ogaana buu yidhi waxa ku jira ha la furo maydkiisa iyo meesha yaalla sanduuqii la furay sanduuqii waxaa loogu tegey wixii uu sheekhulislaamku fatwo siiyey oo dhan oo qoraala buu ku sitaa ilaahay baan la hortegayaa buu yidhi wixii aan dhigay inaa idinku fatwooteen oo ay tahay waxay yidhahdaan marka qawaaniintuu dhigay inta ugu badnayd waxay ahayd bay yidhaahdaan qawaaniin ku saabsiisan waxaa lagu tilmaamaa ninka kani inuu caan ku ahaa awqaafta iyo waxyaabaha khayriga ah wuxuu caan ku ahaa dhismayaasha caankee maanta loo daawasho tage ku yaalla waa ninkii dhisay maalan masjid sulaymaan alqaanuuni waa maqashaanin badan oo masaajidda ugu caansan ee marka la tago istanbul la daawado ah isagaa dhisay jaamacaddii kulliyaadkii la socday isagaa dhisay masjid saliim isagaa dhammaystiray bayt ulqudus dib buu tarmiim ugu wada sameeyey maka waxbuu ka dhisay makiya madiina wuxuu u sameeyey khadamaad cusub buu u sameeyey jawaamicda caamka jaamican weyn ee ku yaalla maxaa la yidhaahdaa baqdaad alimaam alacdam jaamiciisa isagaa dhisay cabdilqaadir jaylaani jaamiciisa isagaa dhisay waxaasoo dhan markaynu eegno inta aan idiin sheegay waa cumuuman muqtatafaad ka mida wixiisii laakiin taariikhdiisii kama warramin waayo taariikhdiisa dagaalladiisa qura haddaan ka warramo dee waa 13 dagaal oo cawaasimta dunida ugu caansan ku furtay belgrad isagaa furtay budapest isagaa furtay bukhara yani cawaasimta dunida maanta la yaqaano waa ninkii dagaallada ku furtay walidalik maynan ka warramin taariikhdiisii laakiin waxaynu ka warrannay dawla alcuthmaaniya oo cahdigiisii maamulayay simaadka caamka ay lahayd wakhtigiina wuu dhammaaday halkaasaynu ku joojin wallah